horta isagu waa beenaale waana munaafiq waana kaafir annaga isaga inta ku sheegaynay waana xaqiiqa waa waxaan ku aragnay cildoon ninkaas wuxuu cuskaday kitaabka islaamka ah laygu xukumo buu yiri isaga kitaabka islaamka ay ma qabtaa markuu awlaad islaama oo islaamnimo ku dhalatay oo wixii noogu qaalisanaa ah intuu soo dhigo social media uu leeyahay waa khaniisiinta mustaqbalka maxaa la barayaa dadka khaniisnimo la barayaa khaniisnimo fidinaya ninkan dacwo iyo diin buu wataa baadariga maraya waa khaniis maalqabeenkii maraya waa khaniis macallinkii marayana waa khaniis ilmaha meesha lagu ururinayo khaniis ma akhlaaq fiican ilmo ku bari nin laba isku darsaday labadii qowm luud gaalnimo iyo khaniisnimo isku darsaday ninka waxa khayrka iyo wanaagga ka sugiyo isku bari muxuu yahay qisadii soo noqotay oo galbeedkii way soo dhaaftay liba xalamtana soo dhaaf khaniisiintii Soomaali bay iskuulada jaamacada ka dhex samaysteen waatana Hargeysa agagaarkeeda iskuulada khaniisiinta ka furan kuwii ugu caansanaa dunida khaniisnimada oo dholeynayay baa dhex taagan ilmahan iyo gabdhahan markaasay madaxdeennina difaacaysaa ay waardiyeynaysaa qiyaamadu ma dhici doonto ilaa ragguna ragga shaqo ka dhigto dumarkuna dumar shaqo ka dhigtaan ilaa gayasiya lesbiana ay dunida qaalib ka noqdaan qiyaamo ma dhici doonto حديث فربنا بان نبي كرسول عليه السلام هدي تلوات اللي يراهدو لغه فقهيه عربيه دمر فولينا سحاق بان اللي يراهدا حديث ما باكتمات انه نبي الله لا تقوم الساعه حتى يستغني الرجال بالرجال والنساء بالنساء الى دمر شقاي كدغتان iyagu isku mashquulaan ragna ku mashquulaan qiyaamo ma dhici doonto ummad halaagsantay oo cadaabkii aakhara lagu dajin rabo weeye qisadii soo noqotay oo galbeedkii way soo dhaaftay liba xalamtana soo dhaaf khaniisiintii Soomaali bay iskuulada jaamacada ka dhex samaysteen waatana Hargeysa agagaarkeeda iskuulada khaniisiinta ka furan kuwii ugu caansanaa dunida khaniisnimada oo dholeynayay baa dhex taagan ilmahan iyo gabdhahan markaasay madaxdeennina difaacaysaa ay waardiyeynaysaa maxaa la barayaa dadka khaniisnimo la barayaa khaniisnimo fidinaya ninkan dacwo iyo diin buu wataa baadariga maraya waa khaniis maalqabeenkii maraya waa khaniis macallinkii marayana waa khaniis ilmaha meesha lagu ururinayo khaniis ma akhlaaq fiican ilmo ku bari nin laba isku darsaday labadii qowm luud gaalnimo iyo khaniisnimo isku darsaday ninka waxa khayrka iyo wanaagga ka sugiyo isku bari muxuu yahay horumarka iyo wanaaggu ku keenay muxuu yahay nin isaga aakhiriya adduunba ilaahay fasaaday oo baabaasan aakhiriya adduunba wanaaggu ku keenay maxay tahay in la soo dhaweeyo gaal khaniisna kuwii ilaahay dhulka intuu la gooyay dabagediyay dariiqoodii baynu haynaa saxiix nabigu waa sheegay asamsaynaan samayn doono xadiidka Abi Saciid al-Khudri wuxuu ku yiri la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum kuwii idinka horreeyay jidkooda raaci doontaan taako dhudhun bahasha la yiraahdo dabbada oo ma sacagalayda ka yar قد حتى هداي قلان واتكدب الجليسان في رواية صحيحة للحاكم في مستدركه وحول حتى مد هدو هو يفوله يكبر فولي دونتان هدي خنيس نمد دفاع عدين سو هدي انه مد دفاع عنه محارب من طريقه انه يفولي انه خنيس بونبونيه معاو دحيه وحير باو دحيه مالمون بيو باعنتها ان لا غاaro لا تتبعون سنن من كان قبلكم واي وحاسي وحقف iyo mujtamac muslim ay aqbalaan maaha waxa laga aamusana maaha in ummadii muslimka ahayd khaniisiin loo boonbooniyo lagu madax salaaxo ubadkii muslimka ahaydna kuwa ilaahay dhulka intuu la gooyay dabagediyay xijaaratan min sijiri mandudin la yiri ubadkii tarbiyadoodii loo gacan geliyo arinaan habooneen waay قال
waba isdhaamaaye haddana khaniis ah war ilaahay ha laga cabsado war dadkan muslimiinta ama madax sheeganaya ama ay wax ka maqlayaan ummadda ilaahay ha uga baqaan ha ogaadaan waxa ay isdifaacayaan ay sababta u yihiin dembigii ka dhasha ilaa yowmi alqiyaama uu ku soconaya safxaadkooda ku soconaya bari xilka waad ka tegi waadna dhiman laakiin dembigaa daba dheeraada diiwaanku uu kuu gelay aakhiro markii ilaahay ku weydiiyo maxaad waxaan dadka ugu sii dayseed ugu difaacdood ugu qiil bixisay ilaahay aakhiro hortiisa maxaad dhihi adoo keligaa oo qaawan oo qabri ku jira marka lagu weydiiyo jidkuna uu yahay ama naar ama janno yahay war ilaahay maxaa la hortagaysaan war ilaahay aan ka yaabno war waxaan waa wixii ummado lagu halaagay meeshii lagu halaagayna maalin walba markhaati leedahoo la maro wabileyli afalaa tacqiluuna dadka lala hadlayay innagu waye wainakum latamuruuna calayhim musbixiin wabileyli afalaa tacqiluun war dadkaa fariinteedu hadday gaadhaysa ilaahay ha uga baqaan dadka idinkuna ogaada oo aakhiru zamaan baa la joogaa waqtigii calanka khaniisyada xataa yastaqniya arijaalu birijaali wاnisaau bالnisaai nabigu uu yihi way muuqataa qiyaamo ma dheera adduunkan gunaanadka iyo gebagabadiisuuna ma foga dhaqan bedelankii iyo diin bedelankiibaa socdoo fidaya haddii aadan wax ka qaban karin adu qayb ha ka noqonin adu ha taageerin oo ha difaacin aduu dembigaa garab ha u noqonin oo adoo meelfa ka jooga miisaanka dembiyadaada yaan lagugu darin aakharana gaal iyo khaniis buu difaacay ama u qiil bixiyay aan lagu dhihin ilahi subxana wa taala ummadda allah soo hanuuniyo kuwana fidnadooda iyo sharkooda allah inaga qabto